nin oo maalqabeen dhaarooda waxaan weydiiyey adi ma isweydiisaan lahay kafan maxaa jeeb loogu diiday kafan soo magaraysiin kafan ninka toli jeeb u hagaajin waay laata hata cadayaa gashatid xogaa sahayaraad ku qaadatid ma isweydiiseen kafan maxaa jeeb loogu diiday kafan maxaa jeeb loogu diiday inuu adduunkan yahay bilaash oo waxba kaa raacaynin soomaali waxay tiri nin inta kabihiisa ka ron hataa maamaha soomaalida diintay ku salaysan tahay gaalada markii la xabaali suudaa loo xiray dahabaa loo xiray saacadiis fiican baa la siin laakiin annaka kafantaas hataa jeeb ma qabto waa maracad hataa xariga waa lagaa furi adduunkan waa bilaash carruurtaada waxba kuu taraynin xoolaada waxba kuu taraynin geeridii wataa way muuqataa markaad dhiman iyo meeshaad ku dhiman iyo saad u dhiman saddexdaa shay laga qariyo marka hooyooyinkan gaaris anigoo weliba zaid nigu faanay zaidaan ugu faanay hooyooyin gaaris xijaabkiina iyo diintiina iyo kutubka saad kor u qaadeen meel lamid ma jirto oo hooyooyin Soomaali ay tagaan wax kale hadaana qaban wadooyinaan dhisnay bridge cusub aan dhisaynaa iskoolaan dhisnay jaamacadaan dhisnay akhlaaqda qofka bini'aadam akhlaaqdiisa muhiim hadaa tukato hadaa soonto hadaa xaj aado hadaa zaka bixiso laakiin akhlaaqdaada ay waxba ahayn qofka waxa la ingiriisi character. If you pray 5 times, you pay zakah, you go to hajj, you fast, but your character is horrible, it's not in tandem with Islam. The akhlaaqdaada ay waxba ahayn oo jiraanka uu ka baxsanaynin oo gurigaada guri maanta loo imaan ay ahayn oo xijaabkaada xiranaynin wax kasta samee marka hooyooyinka waxaan dhihi lahaa ininka ayaa diinta saldhig u tihiin xijaabkaa saldhig u tihiin maantana waa soo camirteen waadna sharafteen ilaahay idin sharfo meelaha diinka lagu baranaayo hooyada waa hooyadii bilowday dadkii ka bilaabo waayo maxamed maama